السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن داودية كسور دواذا برنامج كيجي كلنك أبوانك وعاوي يقول مرتية هاي عبد الرزاق علي محمد عبد الرزاق رستا عبد الرزاق ولا لكسور دوا برنامجك أضعاو مرتية يقول هاي. وعندوي برنامج كله ولا ما سنت. عبد الرزاق ولا لو أن كاجم مهد علينا يا مركب ورا كلن كاد إلى كلن تاي مر لبعض كحكي برنامج كي كسر دو أو يجوا عسومتها هاي إن عبد الرزاق رستا ومجعاجا نانستادا مركب رستا محيد كهذا لسايو رستم بنا إلى عاود دجاه يجون كسر دعسة حي كهذا لسا رستا. أنا طول السؤال شدك تشوفه مجع رستا. أتو مجع عربي هان رستا وحوي وقف مضحى خلاص عن رئيس وكلا لو استعمال عربي هان وحنا أي بحضي أنت عيال مدير صاحب برا ده مكان عيال مدير كشري وهو صاحب كي عبد الكريم سيكي وسوي مقعد بيجي أيوه هذا رستا ساسو يقول بحي مركب ما كده أنا بنقضي ده أنا هلا بقول نقضينا ساسو يقول راعي مقعد رستا هاي تي يجي الجلا واتهاي هدينو انتا كسو gudubno taariikhdaada sidii aad suugaanta u soo gashay ama hal abuurnimadaba adoo warbixin naga siinaya horta saas magacayga ka dhawaatay waa Cabsaaq Ali Maxamed ku magacayga Cabsaaq Rasta waxaan ku dhashay degmo ka mid ah degmooyinka dawladda Soomaalida hoosta dawladda Itoobiya waxbarashadeedii asaasiga ahayd iyo tii sare oo imika ku jira waxaan ka bilaabay degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xilligii aan suugaanta soo bilaabay markii aan muhiimadan hal abuurnimada ay soo gashay waxay ahayd taariikhdu markay ahayd 2016 oo hadda laga joogo muddo 3 sano markaas oo aan suugaantii ugu horeysay aan curiyay ama isku arkayna wax xorin karo waxay 2016 waatay hadaynu inta ka soo gudubno waxa jira gabay la yiraahdo darajo waa gabayada Soomaaliyeed marka maxaad ku sameysay sidee u sameysay adoo warbixin naga siinay gabayga darajo wuxuu ka hadlayaa waxbarashada qiimaha ay leedahay iyo qofka wax bartay sida maxay tahay horumar uu gaaro iyo qofka wax bartay qof kale isku mid ahayn marka gabayga darajo waan bilaabay wuxuu oranaya dadkaygaba dhamaantood samahan kula dardaarmaayo doc kasta ay ahaataba xumaan kaaga digayay doorkana waxaan ku wadaa shay inoo danahay dabiibkii jahligan ku haya oo durusta weeyaan doonista aqoontaad filka dacal ka dhaaftay durdur weeye aan maranin oo daa'im jiri doonta deeq weeye ee buu baxshaan la iska daadinine daafaha adduunkaad ku tagi jamacalka doonto dahab iyo magooyaan marnaba door lacageed bulsho yahay hadaaye cilmigu darajo weeyaan diyaar baan u ahay oo anigu waan tabaqayaa hadii aadami noqoto oo qalinka sii deyso dugsiyada hadaa diido oo khayrka dabargeyso hadii aad dhaqmaha raacdo iyo duulka laga deershay tacalada hadaad xiirato oo diinta ka carrawdo dawarsaad ku noolaanaysa iyo dagaagnimo ee daalkiyo wax sugiyo ku tagi waa damir xumay waanadu qofkay diirisa uu damqanayaa ee dubaaqaaga oo intigiga waa mid ku daranay dikriga iyo salaad iyo haday diinta iyo khayrka daldalool ma weydiyo duruuf noloshu waa dabine doc markaad gufaysay haddana daaqad furantaaye sabirkiyo dulqaadka kolka lagu daboolaayo dawliilkanaad aragto iyo dunida nuuraysa dawliilka macnaha erigaas waxa weeye muuqaalka dawliilkanaad aragto iyo dunida nuuraysa dabaqyada la meegaaray ee la iska dacal taagay dekadaha casriga loo dhisay lagu dalxiisaayo daruuraha waxaa lagu tagay dayaxa lagu gaaray dardar iyo waxaa lagu hantaa waa dadaal badan dawladaha horumaray dhammaan dalalka faanaya haddii aanay dabagelin cilmiga way isla dumayaan digtoor iyo kaniin baan jireen lagu dawoobayo dalag baan la beerteen dhulkoo daadku marayaa u degdega waxbarashada ma jiro shay la dacaliga marka gabaysinta isku eegay waatay marka waxaad ka hadlaysaa waxbarashada dabcan waxbarashadu wad ka hadashay sheegeen heesi wad bedeshay oo heesi bedelan ma leedahay ama abwaan halahaada kale oo erayadii bedeshay
ama aad adiguba lahaad marka miyaad leedahay heesaad bedeshay walaashay runtii horta anigu ma yihi dadkan heesaha iyo waxa bedela heesa aan bedelina ma jiraan laakiin waxa jira in anigu aan heesaha aan curiyo hadda waxaan inoo soo qabanayaa hees ama maaso qofas uu yaqaano ka hadlaysa jacaylka iyo maxay tahay anoo isku tusaaleynaya muuqaalada quruxda badan ee deegaanimada iyo marka inantii maxay tahay aan u tirinayay maasada marka maasada maaday ka hadlaysaa mise waxay ka hadlaysaa qof kale oo maasada waxay ka hadlaysaa inan ban amaanaya oo maxay tahay quruxdeeda iyo aan isdacal dhigaya iyo quruxda deegaanka sida ay baanintii hore u tirin jireen maxay tahay heesaha marka inanta jacayl baa kuugu dhacay mise adiga meeshan baad amaanaysaa gobolkeeda may anigu dib waxaan amaanaya un inaan ahaan qurux badan oo tusaale ahaan marka iyadii baan isdacal dhigaya deegaankii iyo maxay tahay quruxdeedii baan sifaynaya marka maasada waxay odhanaysaa kayn cagaarto cusub qariyey guudka oo caleemuhu isdhaafeen oo curubta laamuhu goonyaha ka ciirto hoobaan casaanihi cimirtiri dusheedoo cadad aan la tirin karin caraftii udgoonkana sida cadalka qaarkii marka caadka laga rogo urtiisaa cudoonkaa cajab gelisa noolaha ama subax cadceeddi cawadaa mur soo tiri cirkoo may ilaah shubay calcalyada xareeduna hareeraha cigaagtoo cawaraysa ruuxdii ka cabbaysa goobta saalan waxaa u jeedaa dhul intuu roob helay qoraxdii markaa soo baxday dabadna xayawaankii ama dadkii meesha ka cabbayeyna ay qoraxdii ka cawaraysa biyaha dhexdoodii tusaalahaan cadceeddii ama subax cadceeddii cawadaa mur soo tiri cirkoo may ilaah shugay calcalyada xareeduna hareeraha cigaagtoo cawaraysa ruuxdii ka cabbaysa goobta waa cadrad haweenoo caynka loo abuuree qurux looga ciil tiray cimrigay ma soo arag cilmi baadhis dabadeed cayn walaan u eegaba maba laha waxeeba maaha ruux waxa caasida caamo maaha jaahila doqon maaha caanyaa cillad iyo dhaliil ma leh cuqdad ma leh caloolxumo cadho iyo gadood ma leh caajis iyo habsaan ma leh curdin ubax ah weeyo cimrigeedu muulumin cilmi baadhis dabadeed cayn walaan u eegaba maba laha wax ceeba caqliga iyo garaadkana caqil weeye garashale cagabadan wareegto cid kastaaba aragto cagabadan wareegto cid kastaaba aragtiyo gabadh maaha cawra hooyadii ka coratiyo caalin aabbaheed baa ciso iyo ammaan mudan markaa maasaa soo dheeray in baan ka badan soo qaadana markaa intaas bay iyadana kusoo gabagabeynaya waa tahay cisi iyo ammaan mudan dee inantaasi ammaanba ilaa xataa gobolkii oo dhan buu soo jeedayo inantaasi laakiin iyadoo ku og baanu jeclaan lahayn waa tahay cabdirasaaq walaalo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay barnaamijkayga kusoo dhawow cabdirasaaq xaggaayo sheekooyinka ma isku wacantihiin ma taageertaa sheekooyinka inkastoo aan anigu dadkii hore ahayo ciyaalkii hore ahayo sheekooyinkaan jecelahay markaa bal xabad sheeka inoo soo qabo xagga sheekooyinka ha waan taageeraa waxay tahay waan jecelahay heesooyinka Soomaalida iyo waxa waxay tahay ama sheekooyinka dhaqameedkii waxa aad baan u taageeraa haddaan inaga sheekeeyo uu sheeka dhaqankii waxa ku saabsan beriyaha ka mid ah ama waqtiyada ka mid ah ayaa waxa jiray wiil baa gabadh soo guursaday aabihiis ayaa damcay inuu gabadhan inuu soo guursaday maxay tahay uu taxaamo oo maxay tahay tijaabiye maskaxdeeda iyo caqli banaanteeda dabeetana inankii buu yeedhayo gabadheeda uu tijaabiye inankii u yeedhay iskuul aabe gabadha soo guursatay saddex dhaliilood saddexdaba way leedahay markaasuu yidhi markaa aabay maxay yihiin saddex dhaliilood bal maxaad ku cadaynaysaa wuxuu marka koowaadi gabadhaada waxa weeye waa qof mudayac oo xoolaha aan si fiican u ilaalin waa marka labaad xoolihii heerku dhaqanayeen marka saalaan heerku miyuu yaala deedna xoolaha si fiican uma ilaalisa buri gabadhii waa gabadh iska mudayaca wey oo midda labaadee beenta wuxuu yidhi gabadhaadu waa gabadh beenta taqaan eri xalaala ma taqaan wadda saddexaadee wuxuu yidhi gabadhaadu waa gabadh hunguri badan xagga maxay tahay way ku horeysaa
qasuudi way saddexdaa aad sheegtay aabe waxaad ku cadaynaysaa saddexda wuxuu yidhi waa takoowaad inay mudaacaad tahay waxaan ku tusayaa buu yidhi beri subax haddii alla ka dhigo neef geela bay soo qabaan adadna way laylina يعني ليلي لما كان لنا وحوي وحلا بريا سيدا ركي وحلا حتى حركة لجوه جانك لجوه حلا هاي البريا سوي حمير كواجو بريا وريال ساق بطيء أو كبال الليليو نجيت على جوه حلا سيان وفرسنا وديالتي هذا ممكن يا فرسنا ومركب فرست طيب أنا أول كم جيت لجوه حلا قبل اللي يقولي على أول جيت يسكب بختين أنا نسوق عن قوانين نبيله سجينك سيد والله يا أول كارجو حلا ويتك طبعا أنا أنت حاكي لك سوريين كوري ayaa u kifreen oo kaxeeyay dabeetana waa la maqnaayo duurka casarkii markay ahayd ayaa urkii soo celiyay sahalkiisa lagu soo xiray qasay go'dii loo yimid ka waran awrkii ma ilaalisay ilaa iyo maanta mar ma fadhiisan sano eegay qasiisi u xiray haday markay soo xidhan meesha uu waliba markuu weerka arkay gowdii istay gowdii mutaacada ku qaar labaad ay iyaduna inay tahay gobol guri badan xaad ku cadeynaysaa wiyada waxaan ku cadeynaya waxa soo iibisay wiyuri joog bahalkiya hilib ku jiro ay soo iibinaysaa dadna guriga digasaayo suuq marka ku keento aduu afka saarmaysiisa soo walaaqa saabad noo iska kacsan dadna sidii baa uu keento suuq kasta uu keento isna walaaqa iska kaca uu keento walaaqa iska kaca uu sida afka saaray ayuu dhamaaday joogi taana qas ku ogaaday takala ayaduna waxa weeye qof been waashida wuxuu taana waxaan ku tusay wuri subaxyadoo gabadhii iska fadhiday guriga hortiisa oo quraac iska dibanaysa halkan aan kitchenka ama arday dheeri baa Soomaaliya leeyahay kitchen waa Ingiriishaan weey Soomaaliya waxa weeye waa arday dheeri baa ha badbaxna Carabi ahaan weey dadna qasay ugu yimaadeen wuxuu taagan bisalaameenoo suu oday xagga ay qashin Allah ودين كواليسن يدوع كوريسن خاصية كده بودي صار يتوي إلهي بكل عرته قال حين يسولي خاصو يسوي كل أم هذا خاصة كده شيء ماذا بنتي كوجد مرتا شكل صار يدنا أنت يدنا مسؤول ها يكذوشي مرتا ذكر رنتو حياة أنت وحياة بدن عقل بدن حياتني عقل بس كتشابيه هاي waata wallahi sheekadaas aad bay iga qoslisay waxaan rajeynayaa in daawadayaashana sheekadaas soo jiidato haddaynu xagga ka soo noqono Cabdirasaaq waxa jira xubno aad taageerto ama labis aad taageerto balse laakiin aynay taageerayaashaadu ku ogeen hadda مثلا caawa anaaba ku casuumay waxaad cunayso ma ogi waxaanad cunayn baaba ku karin karaaba marka maxaa taageertaa darka nooc ma taageertaa ma xirataa أنت سؤال شخص محوي لبسكي وحد ركض نوع عبارة جرتا لبسك عين كوري أنا حنا تاجر ركض حياته يعني عدان كي يبلغ لو ده مدبرات تاجر تي عطانا والله عطانا هو إسكبر بدي أنت تاجر تي كان تاجره حكم ده أنت حياته كلهم كله أنت maxay tahay iska dadka dabiiciga ah kale oo firbayn anjeelada ma isku anjeelada kale ha anjeelada dadka waxay tahay toosii meesha waa ku soo dhama taageera iyo kuwa kale fara badan waa tahay Cabdirasaaq runtii gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii saqaynaa gabayga ugu dambeeya hadda soo qabto waxa jira iska quba qarmuunka marka gabaygaasi hablaha Soomaaliyeed ku hadlay bal wuxuu ka hadlay iska quba qarmuunku ban maqlayaa adoo warbixin naga siinaya gabayga iska quba qarmuunka marka leeyahay erigaas waxa weeye adigu wax la dayrinayo kale kan waxa weeye qabyaalada ayuu ka hadlay qabyaalada xumaanta ay leedahay maxay tahay afooyinkeeda waxyaabaha soo dhan ayuu ka hadlay qabli isku jiriyo xaqii guriga ka bilaabay awlibi caadada may gabayga soo hadlaya qabyaalada gabaygan waxa ka qayb galay barnaamij ay qabatay jaamacadda Najaax sanadkii 2 sano sanad ka hor 2018 bishii labaad barnaamijkaas cilmi baaris suugaan oo ay qabatay jaamacadda Najaax ay ka qayb galay isla markaana ku soo baxay kaalinta labaad qaybta gabayga gabaygaas taan bilaabo wuxuu oranayaa qaynuunka gabayga iyo murtida
quruxda suugaanta qaadirkii ilaah baa i baray qaabka loo dhigay mar haddaan qasdiyo maanse waan qiimogeliyaaye bal dhegaysta qodob qaaliyaan caawa soo qoray ninka qolo ku faanaya ee quruxda moodaya ee qabiil daraadii qof kale qubaya dhiiggiisa waa nimaan qiyaamiyo ogeyn naarta qiiqa lehe waa nimaan warkiis qabin cadaab qoorta loo gelini qalbigiisu ruuxuu dhinto qofalxoogaya qabweynaanta quursiga naflaha qolo ku faanfaanka qatalaadda aadmiga badheer kibir isqaadqaadka iyo qadafka beenta ah walle qooma maaxigiye qabyaaladii inay tahay qarnuun sharafta kaa qaada inay tahay khasaaraha bulshada qiimaheed jebiyey inay tahay qodxan iyo xanuun qurun la beeraayo waa tub rasuulkiiba qiray qiimaha badnaay sallallahu alayhi wasallam inay tahay wixii kala qariray qaranka Soomaali qoqobiyo xad baa loo dhigo qaarba meel degay maalintay qalaadaato ee camal la qiimeeyo ee qaladka ruuxii ku dhacay qabar la taabsiyo ee kii qabyaaliga ahaa qaxar la ooyay inkastuu qabiil sharaf leh iyo qaran ka soo jeedo ama uu xil weyn soo qabto qarash iyo maal haysto adduunyada wuxuu qadaf galaa lagu qisaasay ka qaleeya hebel baa dhale qowlna odhawa way isqardoofayeen uumiyuhu tan iyo qaabiili qaraca waxaa keenay ay qool isula maagtay casabiyada qaawan xumahay nagu dhex qooshiis quruntii islaamii xumaan way iska qabatay waa qiiro iyo yaab dadkii uu isqoonsaday waxba gabayga yaan sii qurxine lay qadarin waaye Allah ayuu qabyaalay disho qoomka waa halise adigaan qaraabiye lahayn qoysas iyo beele adaan shayna ka qarin wixii qayb ah ee maqan qabashadaadu way adag tahay qaali baa tahay Allah ayuu midaan naga dhex qaad qaafil baa tahay waata hadaynu intaa kaga soo gabagabayna barnaamijkeena waan jeclahay inaynu waqti badan isla qaadano maanta bade halkan aan hibadaada iyo hal abuurnimadaadiba inka badan intan aan ku soo bandhigno laakiin waqtigaan inoo saamaxayn waan kaaga mahad celinaya walaalkay Cabdirasaaq Cali Maxamed Cabdirasaaq Rasta kulankaadii la qaadatay ee sidaa quruxda badan ma sha Allah mar dambe iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay welcome daawadayaal barnaamijkeeni kulanka abwaanka oo toddobaadkii bay ku soo qaadan jirnay abwaaniinta Soomaaliya wanaga inta daawadayaal barnaamijka waxa idin la socodsiinaysaa amniinta diinaysay anoo Najum Cabdi Ciise barnaamijku wuxuu idin ka qeymaadaa xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco xagga kamarada waxa noo qaabilsan Cabdiqaadir Xigma xagga isku dubaridka barnaamijkeena iyo jetinkana waxa noo qaabilsan Cabdirashiid Amare barnaamijka xigeenteen ku kulmi doono waxaan idin kaga tagnaa sida iyo fi amaanillah